أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعيق waa Jamaal Xasan video waxa ugu talagalay ama soo duuba waxay tahay cilada ayaan kulmay ciladaasid waxa waa user experience waxa la jiro user experience waxay tahay markii qof isticmaalayo aduu dareemo yani dhibsi aduu dareemayo wax dhibsanayo ama user friendly ahayn waxyaasha uu isticmaalayo ciladaas aan la kulmay ciladaas insha Allah waan tusinaya xalkiisa iyo problemka aan helay iyo saan u xaliyay halkan waxa ka muuqdo scroll kaniti waxa weeyaan wuxuu yani fududeynaya inaan soo degto meesha aan baanahay oo magaciisa colorka aan ka bedelayo obviously mid kasto waxa waaye yani wuxuu leeyahay magaciisa color kasto halkan table kaniti color background ahaato ama text ahaato wuxuu leeyahay magaciisa meel aan controlayo anyway scrollkan waa kanay midda kaleete oo scrollka kaleete halkan waaye midaanita halkan waaye okay labo scroll ayaa shaashadan ka muuqdo okay scrollka hadda daando waxaan rabaa inaan bedelo texiga oo obviously waxa always waxa eegaysaa muxuu ku sheego inta meesha wuxuu ku tilmaamaya first head text waxa waa textkan oo hadda aan arkin fijir duhurne ayaan controlaya so guduudan ka dhiga ama waxaan rabaa ka dhigi karaa ka bacdi backgroundka oo aan rabaa inaan geeso switch to background aan dhaya waxaan hadda halkan arkayna first head bg backgroundka nooca rabaan ka dhigi karaa waa ujeedin nooca rabaan ka dhigtay obviously haddaan hoos soo degto rowga bg waxa waaye meeshan January first January yani rowga koowaad oo la meesh ku dhamaado ayaan rabaa colorka inaan ka bedelo hadda cad waaye waxaan ka dhigi karaa color kale aan ka dhigi karaa anyway ka bacdi markii saas sameeyo waxaan isdhahay okay midlan soo qabo color waxaan ka dhigay oo soo qabo madow aan ka dhigay labadooda ma arki kari textga okay obviously waa text colorkiina bedeshaa ma fiiro at row bg ayaan joogaa haddaan switch to text daan dhaho wuu boodaya scrollkan wuu boodaya wuxuu yani obviously waxaa ku jiro yani wuxuu yani markii oo switch isticmaalayo low component waaye midna wuxuu qaas u yahay textga midna qaas wuxuu yahay backgroundka hadda waxaan aaday mid oo component oo textga ah waa inaan hoos soo degdaa dhibaatada aan yani user experience kan idhahay dhibaatadan waaye so marabi yani ina markasto yani haddaan dho waxaan dhaqaajinayaa ama kana waxaan isticmaalayaa magaciisa ama waxaan even rowgan waxaan kan ku xigto waaye oo meesha soo yar cagaarka bbia textgiisa yani hadda textiga waxa waaye yani cagaar oo kasoo madow ku jiro waaye waxaan ka dhigayaa cadaan ka dhigayaa so switch to background dando wuu boodaya waa inaan hoos soo degdaa dhibaato waay so maxaan sameyn karaa sidee u controller ayaa maskaxdii ku jiray obviously isla markii waxaa laga yaaba adinka qaarkiina dha okay new window scroll waxa la jiro oon ad controlist obviously waa runtiin window scroll waxa lagu controller laakiinse sorry window scrollka oo function waxa jiro oo ku jiro window ku jiro scroll la dhayo so functional badan ku jiro anyway halkaniti waxaan iga isticmaalayo kan scroll 2gana 0 waxa waa left and right way up and down waxa waa kor iyo hoos way yani vertical ka ayaan control haddaan kan click siyo obviously waxaan ka bedelay raqamka waxaan ka bedelay oo 500 ahayd 3000 aan ka dhig just inaa aragtaan meesho ii tagay so waxaan isticmaali karaa scroll 2ga okay haddaan dhaho scroll 2ga isticmaalaya si nii sheegay component halkan waxaan u jeedaa different component waaye midna background waaye midna switch markaan isticmaalo midna text component waaye haddaan furo magaciisa midda oo color background bg-ga meesha bg waxaan ku jiraa haddaan dhaho yani waxaan isticmaalaya window scrollkan isticmaala haddaan dhaho control s because waxaan rabaa inaan ilaa 3
3 second aan rabo ka bacdi effectigaana inuu oo ii shaqeeyo just waxaan i tusinayaa colorka bigger bg gaan ku jiraa refresh aan dhahayaa horta wax yar ka bacdi aan sugaya 3 second ka bacdi jida kana dhaqaaqay kan dhinaca oo right-ka oo scrollkiisa u dhaqaaqay ani waxaan rabi kan uu dhaqaaqo so even xataa anoo ku jiro magaciisa componiga oone magaciisa face sorry backgroundka componigiisa oo backgroundka oo coloryaasha aan ku jiro kan ayuu dhaqaajiyay so kan wuxuu targareynayaa windowga shaashada oo screenkoodu targareynayo oo browserka ah kaasoo dhaqaajinayo ma dhaqaajinayo kama dhaqaajinayo marka waxaan ogaaday inuu kan oon shaqo ku lahayn obviously waxaan isticmaalayaa maxaa la inay use hogan isticmaalayaa waxaan samaystay labo shay aan samaystay midna function one midna reference way functionka waxaan ku rakibtay component kasta oo wrapkiisa oo boxigiisa aan dhahay ama containerkiisa ayaan usoo dhiibay control yani kan waxa waa event way wuxuu ii maqlayaa dhaqaaqa oo hadaa maanta kasoo qabo hadaa inta wax dhaqaajinayo ayuu maqlayaa ayaan ku xiray markasta markaan dhaqaajinayo wuxuu function kana ayuu shaqeynayaa ka bacdi referencega waxaan ku rakibay component kasta oo containerkiisa ayaan ku xirtay obviously middan waa midda oo background waaye bg-ga midda kaleed waxa waa taxiga labada waa isku mid ka bacdi waxaan isticmaalayaa midda oon functionkana obviously markas markaa dhaqaajiyo waxaan update gareynayaa state ayaa jiro aan samaystay statekaas aan usoo dhiibanayaa raqamka ama lambaryaal uu leeyahay markuu dhaqaajinayo lambaryaashaas aan usoo dhiibtay ka bacdi statekana isla markii markaan gashto isla markii waan soo jiidanayaa stateka markaan soo jiido use effect aan isticmaalayaa use effectigaasiti referencega haddana waxaan xisaabayaa referencega oo magaciisa oo component kasto ayaa wuxuu leeyahay scrollkaniti functionkan ayuu leeyahay functionkaniti objectigiisa yani gudihiisa waxaa ku jiro property ku jiro oo top la dhahayo different waxaa jiro left right jiro anyway so right mu maleynay right ma jira ma jiro left wuu jira ahaa anyway top waxaba kor iyo hoos waaye left waxaa right and left ayuu leeyahay anyway so customkan waxaa waaye raqamyaasha oon halkaaned iyo update gareynayo ayaa isla markii aan soo statekan kasoo qaato ayuu wuxuu i update gareynayaa midda up and down so behavekiisa instant waaye yani isla markii yani meeshiisna ajoogsada waaye yani obviously behaviorga waxaa waaye haddaan ka bedelo wax kale smooth ka dhigo wuu taraaraxa marayo ana waxaa rabaa isla markii wax bedelo isla markii meesha oo ii yahay inuu ii taagnaadaan rabaa obviously adinka yani waa barawey kartiin haddii oo yani behaviorkaniti soo yahay meel badanaa jiro oo laga arkayo laakiin xalkeyga saas waaye so xalka ahaan u helay haddadaan imaado refreshan sameynaya oo mathalan kasoo qabo waxaan aadayaa meeshan oodka ku qoran obviously backgroundkan joogaa background waxaan ka dhigtay madow waxaan ka dhiganayaa guduud kasoo qabo guduud ka bacdi switch text aan dhahay isla markii switch text dhahay oodka wax oo kan oo boodaya ma jiro different oo color aan ka dhigi karaa hadda adigugu xiran tahay middaa rabtid haddaan switch to background aan dhaho fiir wax oo magaciisa oo scrollka ma boodooyo because controlkiisa waa custom waaye scroll ah kuma xirno windowga midda windowga kuma xirno middaanin qaas waaye so saasaan u controle I hope inaa iga fahanteen hadday adinka in case mustaqbalka u baahnaantiin
so saasaa loo controlka scrollka oo qaas different component haddaad rabtid inaad wax controlshid saasaa loo controlaa. Anigi functionkanity use hoganity hal xab lee samaystay hadhowtii midii yani effectiganity ama functionalityganity haddaan u baahanahay meel kale u baahanahay halkaas xab lee use hogan aan isticmaalaya. Just waxaan u baahanahay bis labadanity aan soo gashanaya, labadan waxaan ku xiraya containerka oone componigan ku xiraya oone leeyahay meesha oo scrollka ah. Saas ayaan u isticmaalaya. I hope waxaan rajeynayaa inaan waxyaal badan ka hesheen ama iga fahanteen. Marabi inaan waqtiga inaan maxaa la waqti dheer inaan qaato marabi. Just waxaan i tusinayaa midanity oo insteadkanity smoothkan ka dhigaya. Smooth daan ka dhigo wuxuu noqonayaa haddii oo refresh dhaho refreshka mathalan kasoo qabo halkanaan geystay haddaa switch to text dhaho isla markii obviously waxbaa waxaan smoothka qalad miya ma garanayo. Inspect ani waxaan nacbanahay markii wax sameynayo wax kaleedina qalad kaleeda ii yimaado nacbanahay. Just anyway haddii hoos u degto oo mathalan switch aan dhaho wax baa magaciisa smooth intaa wax ka qaldan. Anyway waxaa jiro magaciisa behavior badanaa jiro. Anyway smoothka muxuu ii diiday smooth anisa aan qorma smooth sugbal waxaan sameynayaa smooth saasaa loo qoraa. Refresh. haddaan hoos u degto haddaan switch to text dhaho hey what's going on in hoos saas u soo baxo ahayd saas u noqday ahayd. Let me check what's going on here. Smoothka ma shaqeynayo laakiin noo shaqey ahayd wax baa qaldan inaan saxa waaye insha allah. haddii saas tahay waxaan sameynayaa set time out aan dhahaya halkan because waxaan leenahay isla markii wuxuu update gareynayaa. So set time out aan ku xiraa waxaan sameynayaa 500 aan ka dhigayaa half second. Refresh aan dhaho hoos u bax switch text. hadda uu shaqeynayo because of reasonka oo smoothkanity uu dhaqaaqeyn waxay tahay set time out kanity wax yar wuu daahaa. That's why wuxuu update gareynayaa raqamka ama ka keensanayo referencega. So obviously 100 daan ka dhigo effectigaas ma leeyahay aan fiirinaya. boqol ma anfacayo at least waxaan maleynayaa 500 meelaas waay. Anyway smoothka laazim waa set time out na ku xirto because wax yar inuu soo daawa update kanity isla markii hadaada update gareynaysa smoothkan waqti yar ayuu u baahan yahay inuu xisaabo magaciisa raqamka. So marka problemka waa aragnay. So hada switch daan dhaho meeshii wuxuu ii tagayaa magaciisa odrowga aan joogo. Haddaan switch dhaho meesha oo textku ii tagay. Anyway waa ka haddii oo u baahneen magaciisa set time out obviously marka hore waxay noo ahaay instead wax laayo
waa bixilmaamay magaca sometimes waa bixilmaamay insteadka ama auto. insteadka waxaa waaye isla markii wuxuu yani ii aadayaa meesha oo switch down wax oo dhaqaaqaya oo oone smooth ma jiro. so instant waxaa waaye isla markii meesha ayuu ii abaaraya. that's it. waqti badan ma rabin inaan qaato 15 daqiiqo because problemka haddaan aragnay xalkiisa sameynaya anyway. waa kaas xalka saas waaye. haddaa u baahatiin sidaas sameeya. wixii oo yani haddaad ka faa'iiday videoganiti text iyo comment like garay yani comment garay. just that's it. haddaa ka heshaan waxyaasha camad yani waa soo insha allah waa soo duwaya haddii yani niga arko like iyo comment haddii inka arko waa waxyaala oo faa'iido leh oone sidaa hadda ad arkaysaan waa nii soo badinaya insha allah. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.